iskuulka waxa lagu kala doonaa xagga maadooyinka cilmiga sayniska social xisaabta carabiga naxwaha farduqaynta afka Soomaaliga tarbiyada toosan magacayga abwaan wariye Salabaan Aadan Maxamuud idaacada wareegta oo ka shaqeysa magaalada Hargeysa marka barnaamijyada siyaabo kala jaajada ayaan uga shaqeeyaa waxaan ahay wariyaha xayeysiiska u sameeya sida tooska ah ee hab walba cid adeegada uga heli karto mana sameeya xayeysiiso oo qura waxa aan sameeyaa baafinta wixii luma dadka bini'aadanka iyo xagga moogtay calaawooyinka xagga kale waxa aan sameeyaa oo kale xagga wacyigelinta heer caalami ah iyo mid loo qaaba shaqada waxaan ku dhiirigelinaa moogtahay oo aad iyo aad aan ugu dhiirigelinaa inay u sameeyaan dhalinyarada shaqo abuur anigu marka hore waxaan ahaa wariye lagu tababaray radio Muqdisho 1982 arday loo tababaray ayaan kamid ahaa marka barnaamijkan aniga sameeyay idaacada wareegta kana shaqeysan meelaha ay bulshada ku badan tahay bulshadana u qaabilsan sida xayeysiiska baafinta waxyaabaha lumay waxa si nabadgelyo iyo naxariis ku jirta looga codsanayaa dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa wiilka yar oo la yiraahdo Jaamac Cabdi Ibrahim oo abaday Jaamac Cabdi Ibrahim dadiisu waa 8 sanadood shalay casarkii ayaa cid ugu dambeysay midabkiisu waa maahin dadiisu waa 8 sanadood waxa uu sitaa shaar buluuga iyo surwaal madow shaqada idaacada waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa barnaamijka sidii aan u bilaabayna waan ku sheegayaa marka hore waxa aan ka fakiray hab shaqo oo wanaagsan oo anigu aan ku shaqeysto inaan helo oo dadka kale aan ila lahayn aniga oo magacayga adduunka oo dhan ku faafinaya waxna dheefaya si magacaygu adduunka uga noqdo caan qodobka labaad waxaan tusaale uga dhigayaa dhalinyarada amaba waayeelka cidda damacday inay shaqeysato in hab kasta loo shaqeysan karo dhalinyartu tusaale waxay u tahay ma og tahay dalka iyo dadka marba bulshada dhalinyarada ay xoog galiyeen sida ay u shaqeysato ayaa dalka u kabcaa marka dhalinyarada tusaale waxaan uga dhigayaa haddii ay fikir wanaagsan keenaan oo taariikhda iska daayaan fikirka shaqada dalkooda inay ku soo kordhin karayaan horumarka dhalinyarada waxaan ka waaniyaa 4 qodob ama 5 qodob lambar 1 dhalinyaradu inaanay qaadan qori wixii aan ahayn askari dhalinyaradu inaanay isticmaalin waxyaabaha mukhadaraadka ee reebada maskaxda bini'aadanka sida xashiishada daraakiska wixii la mid ah maadaama ay yihiin awoodii iyo maskaxda dalka lambar 4 dhalinyaradu inaanay tahriibin haddii ay tahriibaana ay la kulmi karaan dil boob kufsi iyo dhac iyo dhimasho sideedaba